waxaa lagu sii dhowaanayaa 2026 taasoo ka dhigan in ay soo dhowaatay doorashadii sida 4 sanadlaha ah uga dhici jirtay Soomaaliya tan iyo 2000 ilaa hadda waxaan la'aanahay hogaamiye ama siyaasi ku ololeeya ajandihiisuna uu yahay dhaqaalaha dalka in uu wax ka qabanayo kuwa xilalka jooga iyo kuwa sharaxanba kama muuqato wax saansaan ah oo ay dhaqaalaha dalka wax uga qabanayaan aan isweydiinay ma dhaqaalaha ayaan muhiim ahayn waxa dhalinteenu la tahriibayso oo ay badaha u jiirayaan una dhimanayaan soo dhaqaale la'aan ma aha waxa dibadda loo aadayo oo dhoofka kumanaanka doolar looga bixinayo soo dhaqaale raadis ma aha waxa ay madaxda laftoodu la baryootamayaan oo ay daafaha dunida magan allayda ugu hayaan soo dhaqaale la'aan ma aha waxa beesha caalamku ay masiirkeena inoogu yeeriso ee ay amarada inoo siiso soo dhaqaalaha ayna siiyaan ma aha sababta aan wadanka looga helin adeeg caafimaad oo la isku halayn karo ama waxbarasho heer sare ah soo dhaqaale la'aan ma aha waxa wadankeena arag xumada biday ee uu dalal kale uga foolxun yahay soo dhaqaale la'aan ma aha kulli waa haa su'aashu waxay tahay ma madaxdeena ayaan aqoonin sida dhaqaaluhu u shaqeeyo mise dambaysa kala hayn jawaabtu waxay u eg tahay tan dambe wadan dhaqaalihiisu ma abuurmo ilaa ay dadkiisu wax soo saar yeeshaan lacagta kaashka ah ma aha dhaqaale sal adag leh ee dhaqaalaha runta ahi waa waxa ay dadkaasi soo saaraan mar walba oo dal alaab loo soo dhoofiyana dhaqaalihiisa way burburisaa tusaale dagaalka ugu weyn ee labada qole ee adduunka ugu xooga badan u dhaxeeya waa dagaal dhaqaale waa midka u dhaxeeya China iyo Mareykanka dagaalkoodu xabad maaha ee waa soo dhoofinta iyo soo dejinta China waa dalka ugu wax soo saar badan adduunka xagga alaabaha household-ka iyo technology-ga maadaama uu suuq furan yahay awoodda gadashadooduna ay weyn tahayna waxa ay u iibgeeyaan Mareykanku maadaama ay ganacsi iyo maslaxado kala shiinaha ka dhaxeeyaan xaq uma laha in uu yiraahdo jooji alaabtaada sidaa darteed mar walba waxa uu ugu hanjabaa in uu canshuur saarayo alaabaha shiinaha laga keenayo dhanka kale dhawaan dagaal dhaqaaleed ayaa u dhaxeeyay Canada iyo Mareykanka dagaalkaasi wuxuu ahaa kadib markii Mareykanku uu yiri alaabaha Canada ay keento dalka waxaan saaraynaa 25% oo canshuur ah waa alaab qiimaheedu isku yahay 410 bilyan oo dollar waxayna sababaysaa in alaabihii Canada ay keenay jirtay Mareykanka uu qiimahoodu kordho 25% taasoo sababaysa in ay ka qaalisanaadaan alaabaha kale ee suuqa yaala una dhigma kadibna toodii la gadan waayo Canada oo arrinka ka jawaabaysa waxay ina 25% saartay alaabaha uu Mareykanku keeno dalkooda ilaa ay markii dambe is afdhaafeen oo ay meel kharaar ka gaartay hadda ma balihin aynu mashiino culus iyo farsamo cajiib ah la imaano ee waxaa jira waxyaalo dabiici ah oo dalkeena laga helo misna la inoo soo dhoofiyo haddaan dalkeena fiirino waxaad arkaysaa waxyaalo dalka laga heli karo oo si fudud ganacsato faa'iido yar raadinaysaa ay dalka keenayaan waxaa ka mid ah kalluunka oo maadaama aynu nahay dalka Afrika ugu xeeb dheer kalluunku waa shayga ugu badan ee dalkeena laga heli karo misna waxaan aragnaa in aynu isticmaalno kalluun lagu soo sameeyay Thailand kaasoo laga yaabo in markii hore waxyaabaheena laga gurtay kadibna isagoo qaali ah dib la inoo ka iibiyay waxaa ka mid ah caanaha geela adduunka jooga 3 meelood meel waxa uu ku nool yahay Soomaaliya caanaha geeluna waa bad inkasta oo geeli iyo dadkii lahaaba ay baadiyaha iska wareegayaan oo aysan ka faa'iideysanin misna caanaha geelu waa kuwa lagu bedelan karo caana booraha oo laga keeno Yurubta fog haddii la mamnuuci lahaa ama cashuur badan la saari lahaa caana booraha waxa iman lahayd in ay ganacsato warshadeeyaan kuwa geela oo uu halkaas inoogu baaqdo dhaqaale badan dhanka Puntland gaar ahaan gobolka bari haddaan fiirino waxaa ka baxda timir aan yarayn sidaas oo ay tahay wadanka waxaa la keenaa ilaa 20 ama 12 brands ama shirkado kala duwan timirtood oo khaliijka laga leeyahay haddii qorshe loo samayn lahaa timirta Puntland ka baxda lagana xakamayn lahaa mid khaliijka malaha waxay noqon lahayd il dhaqaale oo aan sahlanayn marka laga yimaado xoolaha nool kalluunka iyo beeyada timirtu waxay noqon lahayd isha dhaqaale ee afraad ee dhanka Puntland haddase geela ayaa daaqa waxaan kaloo dhawaan aragnay cambe iyo moos laga keenay Masar oo xamarweyne lagu iibinayo halka uu cambaheennii oo laamaha geedaha ku bislaaday uu hoos daadsan yahay beeraha afgooye qofka dalka wax ka soo saaraya markii uu arko badeecado ka xoog weyn oo suuqi qabsaday waa uu ka niyad jabayaa waxyaalo kale inuu ku mashquulo ayuuna bilaabayaa qofka dhalinyarada ah ee energy-ga badan ku jira maanta iyo hooyada daashay ee suuqa intii caanaha la fadhida ka wada habeenimo iyadoo ka fikraysa goorta caaga ugu dambeeya laga gadan doono si ay u hoyato midka badda saaran ee shabaagta dhiganaya sheedana ka eegaya maraakiibta jariifku si aysan shabaagta uga jiirinin cunuga hala booqad ka soo aaday iskuul gaalkacya ku yaala subax walba isagoo ay hooyadii dhigta ugu soo sheegtay in dalku hagaagi doono gabadha tahriibtay ee Liibiya sanadka ku xiran magafuhna uu jir dula maalin kasta
waalidkeedna ay u waayeen lacag ay madax furasho uga bixiyaan. askariga furinta cadawga ku hortaaganayaan mushaar qaadan 3 bilood ee u dambeysay, rajana ka qaba in uu mar uu dalkiisu noqon doono mid hodan ah, $10,000 loo qori doono. intaas iyo kuwa aanan xusinba waxay riyadooda ku rumayn karaan hogaamiye isku xilqaama sidii uu dalka dhaqaalihiisa wax uga qaban lahaa. waxa qabadku haddii uu dhabkaa yahay horumar ayaad ka samayn kartaa, culays kastaba ha lahaado. tusaale kan waa madaxweynaha Burkina Faso ninka lagu magacaabo Ibrahim. ayaan dhaweyd wuxuu beeralayda dalkiisa u qaybiyey 400 oo cagafta beeraha ah. haddii aan fiirino nooca uu u qaybiyey waa cagaftan qiimaheedu celcelis ahaan Shiinaha waxay ku joogtaa $6,000. markaasna qiyaas ahaan lacagta uga baxday waxay noqonaysaa 2,400,000. haddaan dhahno madaxweynaheenu maanta 100 xabaha soo iibiyo oo ha u qaybiyo beeralayda, waxa ku filnaan lahayd $600,000 ama ka yar. malaha waa qarashka uga baxa hal safar oo dibadda u aado oo kaliya. su'aasha markaas maskaxdeena ku soo dhacaysa ayaa waxay tahay, maxaysan madaxdeenu wax muuqda u qabanin oo helaa goorta ay kursiga yimaadaan?